waxaana soo gaadhay cabasho odayaasha dhaqanka iyo guddiyada magaalada ka jira ay ka cabanayaan dhibaato gaar u ah magaalada Buuhoodle oo dadweyne tiro badan inay isugu yimaadeen wixii Buuhoodle soo gaara yuhuudda ka soo gaadhin ku saabsan wixii wax tar u ah ummadda waa wax loo baahan yahay waxna aan ka oran karin nin baa bari gabadh soo doonay waa la siiyay gabadhii waan soo noqonayaa buu yiri muddo kadib uu soo noqday gabadhu reer faqiir ay ka dhalatay gabadhii oo abaar ku dhacday oo xanuunsatay iyo reerkii oo silacsan buu yimid saa intuu eegay ay wallaahi bas gabadhi ma joogto wuu iska tagay ninkii wuu iska tagay nin baa soo maray reerkii gabadha quruxdeedii u arkay dayacana u arkay iyo silaca gabadha haysta ninkii reerkiina uu gacan qabtay gabadhiina uu qaado xanuunkii buu ka biyey gabadhii baa aad u qurux badatay wuu labisay kii baa loo sheegay arrintii markuu maqlay gabadhii oo qurux badan iyo reerkii oo ladnaaday gabadhii oo labisatay gabadhii oo bugsatay ayuu soo noqday tan iyo intii uu bilaabmay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 oo adduunka si weyn ugu baahay waxa Soomaaliland ka curtay dadaalo la doonayay in lagula tacaalo faafitaanka xanuunka COVID-19 kaasoo guddi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay sidii loola tacaali lahaa xanuunka safmarka ah guddigan waxa guddoomiyaha madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaana Soomaaliland intii ay guddigaasi jireen ay la wareegeen lacag iyo qalab badan oo lagula tacaalayo xanuunkan lacagahan iyo qalabkan oo ka kala yimi xukuumadda Soomaaliland ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland iyo deeqaha dunida ka soo gaaraya Soomaaliland oo ahaa kuwa si isdaba joog ah isaga soo daba dhacaya wararka ayaa waxa ay intooda badan sheegayaan in aan qaarkood la gaarsiin gobolada bariga Soomaaliland waxaana iska soo daba dhacay qayladaan kala duwan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka hadlayaan kana dhiibanayaan kuwaasoo dalbanaya in la soo gaarsiiyo deeqaha dunida iyo qaybaha loo qoondeeyay goboladaasi ee xukuumadda Soomaaliland ay qoondeysay xukuumadda Soomaaliland ayaa suurtagelin ama aanay suurtagelin inay noqoto mid baaqaasi dhigaysata gaar ahaan gobolada bari haddaba gobolada go'doonka ku jira ee bariga fog iyo weliba hawdka waxaa ka mid ah gobolka Buuhoodle iyo gobolka Badhan waxaana baaqooda jawaab ka bixiyay dowladda Soomaaliya ama dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in diyaarado soo gaarsiinayso iyadoo magaalo xuduudeedka Buuhoodlena ay soo gaarsiiyeen diyaarad daawooyin sida waxaana soo gaadhay cabasho odayaasha dhaqanka iyo guddiyada magaalada ka jira ay ka cabanayaan dhibaato gaar u ah magaalada Buuhoodle oo dadweyne tiro badan inay isugu yimaadeen kuna taalla meel xuduud ah oo dad badan isu soo galaan cabashadaa ka bacdi markii madaxda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ugu horreeyay ay dhageysteen wuxuu ra'iisul wasaaruhu amray in loo raro agab caafimaad intii tamar ah oo lagaga hortago bal waxyaabaha ka jira deegaankan sida deegaanada kale ee Soomaaliya meelo ka badan loo geeyay agabka caafimaadka bilowgiisii baan wadnaa idinku ma filla waa ognahay baahida meesha ka jirta dhibaatada jirta dadku say isugu yimaadeen meeshan oo dad tiro badan ama dadweyne tiro badan magaalo ah magaaladan oo ah magaalo aad u ballaaran isla markaana ah gobol ballaaran oo Soomaaliland istiraatiiji u ah waxaa la sheegay in muddooyinkii u dambeeyay caafimaadka dadka degan halkaas ay aad u liiteen iyadoo wax agab ah aan la gaarsiin deegaankaasi dhanka xukuumadda Soomaaliland oo caadigii xukuumaddii hore ee kulmiyay ay ku xusuustaan deeqihii isdaba joogga ahaa ee Soomaaliland gaarsiin jirtay waqtigii abaaraha iyo waqtigii shubanbiyoodku ay aafeeyeen iyadoo dadaal dheer loo galay sidii bulshadaasi loo gaarsiin lahaa adeegyada ay tabanayaan labada xukuumadood iyo labadii wasiir ee deegaankaasi ka soo jeeday ee siyaasadda xukuumadaha kala metelayay xanuunkii dhibka badnaa ee dadka badan u dhinteen ee shubanbiyoodka ahaa inuu isna aad iyo aad hoos ugu dhigay ilaah baa mahadda leh dadaal weyn oo aan gallay kadib ayaa maanta waxaynu maraynaa beeshinada yaallaa inay 70 ka yar yihiin oo iyaguna dadaal xaddaaf sameeyey tiimamka jooga iyo shaqaalaha imika halkan joogaa way sii joogi doonaan ilaa iyo aanu weyno wax kaysasa hadda halkan umaan iman istustus iyo siyaasad waxaanu imid wacyigelin
maadaama ilaahay raxmaadkii shubay oo ilaahay abaartii naga dulqaaday horta ilaahay aanu mahad celinno nimco waliba nusqaanteeda leh arlada waxaa ku jiray shibanbiyood biyaha roobku haddii aan balliyada iyo baraagaha laynaga dawayn wuu sii fidinayaa cudurka nin 1,500 kilomitir ka soo waraagaya markuu buuhadla imanayo ma xukuma ma puntlandba 13 tiidu ka joogaan waxaan umalaya markay maseexanay shaqeeyaan qolooyinkii marka roobku daay ee aad bogsateen yimid waxay doonayaan inay cusbitaalka arkaan miyaynu ogolaannaa ha joogo ha noolaado wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Salawaan Ciise Axmed Xagle Toosiye waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow magaaladaadii waa wasiirka kaliya la dareen noqday umadiisa xanuunsanaysay waa wasiirkii u yimid muddo bil gudaheeda 4 jeer iskaga soo noqnoqday si uu ogaado ama xogaal uga noqdo xaaladda caafimaad ee umadiisa ku sugan tahay maanta halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Salawaan Ciise Axmed oo runtii dadkiisu ay aad ugu heelan yihiin una soo dhaweynayaan wax badan oo muxuu ahaayay ay ku naaloonayaan oo qabtay wasiir Qambi oo shacabka buuqood le baafinayaan halka uu jaan iyo cidhib dhigay xaaladda adag ee deegaankaas soo wajahday kaasoo ay filayeen inuu ciyaaro doorka gurmadka xukuumadda ee deeqaha gobolada kale la gaarsiinayo isla gobolkiisa uu soo gaarsiiyo ayaan dhaafin hayndaabka Hargeysa taasoo bedelkeeda ay noqotay in uu diyaaradda ka timid dhinaca Muqdisho uu dhaleeceeyo bulsho baahan oo wixii ay u baahnayd maanta adduunyada dhan ka jira baa Somaliland iyo shakhsi midna uu cid diiday hortaagnaa oo dhibaato ka waday wixii buu wada soo gaara yuhuudna ka soo gaadhin ku saabsan wixii waxtar u ah ummadda waa wax loo baahan yahay waxna aan ka oran karin gobolka Buuhoodle ayaa waxa uu yahay gobol dhinaca hawdka ku yaala isla markaana xuduud la leh dalka Itoobiya degmada Buuhoodle ayaa degmo ahaan waxa ay ku fadhidaa deegaan aad u ballaaran iyadoo lagu tiriyo inay xukunto ugu yaraan ilaa dhowr iyo 9 tuulo waxaana degmanimadeeda ay qaadatay sanadkii 1970 bilowgiisii iyadoo muddo 14 sano ahayd sub-district waxaana magaaladaasi magaceeda hore ka mid ahaa Shaxda iyo Weyle lagu xidh oo ka mid ahaa magaceedii hore loo yaqaanay